ma sahlanayn nolosha dhibaatada badan ee ka soo bilaabatay tuulo ka tirsan Ankara oo ah caasimadda dalka Ghana ilaa ugu dambeyntii ay soo gaartay Spain waana sheeko dheer midda uu treenka kubadda cagta u soo fuulay xidiga cusub ee kooxda Arsenal Thomas Partey noloshiisa bilowga kubadda cagta sida uu ugu guuleystay ciyaartooy inuu noqdo aabihiis inuu ahaa tababare kubadda cagta sababta hooyadiis ilaa iyo maanta ay ugu ganacsato sandaqad yar iyada oo wiilkeedu uu ciyaaro mid ka mid ah kooxaha ugu dhaqaalaha badan dunida iyo guud ahaan sida nolosha xidiga Thomas Partey ugu soo baxday saboolnimada una gaartay heerka maanta ay taagan tahay ayaan muuqaalkan ku soo gudbin doonaa marka hore daawade intaanan guda gelin sheekadan oo faahfaahsan waxaan ku xusuusinayaa inaad share dhahdo muuqaalka sidoo kalena like aad tiraahdo si uu saaxiibo badan u gaaro mahadsanida magaciisa oo buuxa waa Thomas Partey oo loo soo gaabiyo Thomas Partey sida dad badani ay u garan og yihiin xidigan waxa uu dhashay 13 June 1993 hooyadiis iyo aabihiis waxa ay ku soo koriyeen nolol adag iyaga oo ku noolaa guri aad qariib ay u tahay in nololu isku aamino oo ku yaala magaalada Udamase Korba ee dalka Ghana waalidkiisa magac weyn kuma lahayn Ghana sidoo kalena ma haysan dhaqaale ay ku soo jiitaan bulshada inteeda kale Thomas wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan reer Saboola laakiin qadarinta qoyskiisa ay u hayeen kubadda cagta ayaa heer sare gaarsiisay aabihiis wuxuu ahaa macallin kubadda cagta halkooyadiis ay ahayd ganacsato yar oo markaasi waxyaabaha dadku ay jecel yihiin ku iibisa sandaqad yar oo ku taala tuuladii ay deganeyd sida noloshiisa ku xusan waxaa la sheegaa in hooyadiis iyo aabihiis iyo 8 caruur oo isaga la dhashay ay ku wada noolaayeen guri aad duq u ah oo ku yaala tuuladii ay ku noolaayeen sida laga soo xigtay saxaafadda dalkaasi Ghana hooyada dhashay xidigan Thomas Partey waxay haysatay 3 caruur kale ka hor inta aysan la kulmin aabihiisa markii hore Thomas walaalkiis Frank ayaa si fiican u qaaday wadada aabihiis isagoo tayo fiican iyo jecel u qaaday kubadda cagta waxaana soo leyliyay tababarayaal heer caalami ah waxaana uu caan ka noqday magaalada Udamase Korba ee dalka Ghana oo ay qoyskan deganaayeen inaad haysataa tababare kubadda cagta sida aabaha oo kale waa dabiici inaad jecel u qaadaa kubadda cagta Thomas iyo walaalkiis Frank ayaa labaduba waxay dhaxleen aqoonsiga kubadda cagta ee aabahooda labada walaale hamigooda waxa uu noqday inay xirfad ahaan heer sare ka gaaraan kubadda cagta beri waxaa jirtay uu miir beeli jiray xidiga Thomas Partey sida uu xilliyada kuleelka kubadda ugu bursanayo wadooyinka laakiin ugu dambeyn xidigii saboolka ahaa waxa uu ka dhigay xirfadiisa kubadda cagta mid heer sare gaarta Thomas wuxuu bilaabay kubadda cagta isaga oo saldhiga aabihiis ee Korba ku biiray ilaa da'diisu ay noqoto 10 sano ka hor inta uusan u guurin Asheman oo ah goob si weyn uu kaga helay tacliin badan oo kubadda cagta aabihiis waxa uu siiyay naynaas uu ugu magac daray Senegal taasi oo ula jeeday in xidiga badan oo xulka Senegal u soo ciyaaray qaab ahaan uu matalay xidigan markuu Thomas sii waday xirfadiisa kubadda cagta wuxuu bilaabay in uu markaasi nasiib u yeesho riyadiisa safarka kubadda cagta ee Yurooba isaga oo sii maraya dhul aad saxaro u ah ilaa uu ka gaaro Yurooba Thomas waalidiintiisa ayaa dhowr jeer isku dayay inay wiilkooda lacag u ururiyaan si ay diyaar ugu noqdaan qabanqaabada safar uu ugu baxo Yurub halkaas ay u arkayeen nolol hodan inuu ka soo heli karo Partey ayaa la siiyay fursadiisii ugu horeysay ee ugu dhaqaaqi lahaa Yurub isaga oo wicitaan ka helay Spain laakiin waxa ku adkaaday inuu durubaba helo baasaboor uu ku safro Thomas iyo wakiilkiisii barigaas labaduba waxay isku raaceen inay u dhaqaaqaan Spain si tijaabo guuleysatay xidiga uu maro laakiin waxa ku adkaaday inay helaan warqadaha duulimaadka iyo baasaboorka kadibna waxa ay ku dhibtoodeen muddo ay ku jireen xero ku taala Ankara halkaas oo ay cunno meel ay seexdaan iyo tababarba ay ku waayeen maalintii xigtana Thomas iyo wakiilkiisa ayaa waxa ay gaareen safaaradda Isbaanishku ay ku leeyihiin Ghana halkaas oo ay
dhammaanba warqadihii dukumeentiyada ee bixitaankooda ay ka heleen. Thomas ayaana ugu dambeyntii u safray Spain isagoo aan aqoonin waddo uu kaga baxsado dhibaatada halkaasi taala. lama socdaan hooyadiis, walaalihiis, abtigiis, adeerkiis. waxaa soo dhaweeyay koox indheeyaal oo Atletico Madrid ka tirsan, halkaasi uu ugu dambeyn ka fuulay safarkiisa kubadda cagta. Thomas ayaana u ciyaaray Atletico Madrid C kahor inta uusan u dhaqaaqin kooxda B-da, halkaasi uu kula kulmay Olivier Torres Saúl oo kooxda B-da ay ka wada tirsanaayeen. waxaana uu u aqoonsaday Diego Simeone ciyaaryahankan mid anfici kara kooxdiisa koobaad sabab la xiriirta quwadiisa kubadda uu ku ciyaaro, dhexdhexaadnimadiisa iyo awoodiisa garoonka. waxay qaadatay qiyaastii 7 bilood kahor inta uusan qofna ka garanin kooxda inteeda kale. Thomas wuxuu ahaa wiil madow oo Afrika ka yimid, kaasi oo qof waliba si yasmaha uu fiirinayay markii Atletico Madrid ay go'aansatay inay kooxdeeda koobaad ku soo darto. kadib markii uu ku faraxay in uu markaasi kooxda koobaad boos uu ku helo, durbaba way adkaatay in uu la qabsi sameeyo, taasi oo keentay in loo safriyo kooxaha Mallorca iyo Almeria. Thomas Partey ayaana dib ugu soo laabtay kooxda Atletico Madrid. Diego Simeone kooxdiisa ayuu kula guuleystay Europa League iyo UEFA Super Cup-ha. xilli aad u adag Thomas Partey oo ciyaartooyda Afrika ay adag tahay inay boos ka helaan koox weyn ayuu markaasi ku biiray jiilkiisii kooxda Atletico Madrid oo ay isku waqtiga ahaayeen. waxaana isaga iyo Saúl iyo ciyaartooy kale mar qura ay qabsadeen nidaamka dhalinyarada kooxda koobaad ee Atletico Madrid. waa ciyaartooyga ugu weyn ee Ghana soo maray kadib Michael Essien sida taariikhda ku xusan. marka laga reebay in ciyaartooy kubadda cagta ee guuleysta uu yahay, waxaa jira jecel qurux badan iyo sawiro mararka qaar la soo dusiyo kuwaasi oo u dhaxeeya xidigan iyo lamaantiisa diamondka madow ee Ohema lagu magacaabo. gabadhan inkastoo asal Kanadiyaan aysan ahayn, haddana jinsiyadda dalkaas ayay haysataa, waxaana la rumaysan yahay sidoo kale mar inay xiriir la samaysay xidigii hore ee kooxda Barcelona Nelson Semedo. ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ghana ayaa dhowr jeer sawiro muuqaal xidigan Instagram-kiisa ku soo muujiyay isagoo la sawiran gacalisadiisa, waxaana dhowr jeer fasax ay ku riyaaqeen ay ku gaareen dalka Malta ama jasiiradda Malta. shaki la'aan Ohema waa gabar cajiib ah oo ku guuleysatay inay wadankeeda ka dhigta mid ka mid ah kuwa ugu horeeya dhanka quruxda, waxaana ay ku faantaa jinsiyadeeda madow inkastoo ay qoyskeedu dhalasho ka haystaan dalka Canada, halkaas way ku barbaartay waxna ku baratay. helitaanka in la ogaado Thomas Partey noloshiisa gaarka ah waxay tahay mid adag, laakiin waxyaabaha ugu dhow ee lagu ogyahay waxay tahay in aabihiis uu ahaa nin kubadda cagta macallin ka soo noqday, hooyadiisna ay ahayd mid ku ganacsan jirtay sandaqad yar oo ku taala magaaladii ay ku dhasheen ee Ankara ka tirsanayd xidigan iyo walaalihiisa. ilaa iyo haatan hooyada xidigan waxa ay iibisaa waxyaabo yaryar oo gasaacada ku jira, waana mid iska diiday inay aqbasho mushaaraadka sare ee xidigeeda uu ka qaato kooxda Arsenal iyo Atletico Madrid. sidoo kalena waxay gabi ahaanba ka soo horjeesatay inay u duusho wadamada xidigan uu ka ciyaarayo, gaar ahaan England, magaalada London, halkaasi oo nolol qurux badan ay ka bilaabi kartay. Thomas iyo aabihiisa waxa ay jecel dhaxal u qabaan kubadda cagta, hooyadiisna waxay jecel u qabtaa ganacsigeeda yar in ay markaasi aaminto oo ay gacanteeda waxay ku shaqaysatay ku anfacdo, sida markaasi dhawaan ay u sheegtay saxaafadda gudaha ee Ghana. Thomas Partey xidiga cusub ee kooxda Arsenal kulankiisii ugu horeeyay ayuu Gunners u saftay isagoo ka hortagay Manchester City, markaasi oo guul daro gool iyo waxba ay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. guud ahaan daawadayaal, nolosha gaarka ah ee Thomas Partey xidiga cusub ee kooxda Arsenal intaasaan ku soo gabagabeynayaa. daawade waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad share dhahdo, sidoo kalena like aad tiraahdo si uu saaxiibo badan u gaaro. muuqaalkan mid ka xiga intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.